السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا الله سعوتان ودنك يوكرين waxaa kusoo kordhay xaalad cusub oo waji kale u yeeshay dagaalkii dalkaasi ka socday. Ruushka ayaa markaa wuxuu u ololeynayaa 4 gobol oo dalkaasi Ukraine kamid ah inuu ka jaro ama uu ka gooyo dalka Ukraine intiisa kale isagoo doonaya in uu sida Crimea oo kale uu ugu soo gooyo isla markaana uu ugu darsado dalkiisa. Ruushka ayaa wuxuu qorsheenayaa in afti uu ka qaado 4taasi gobol aftidaas oo bilaaban doonta 23 bisha September kuna dhamaan doonta 27 bisha September. Aftida ama codeynta waxay ka bilaaban doontaa gobolka Donbas loo yaqaan oo ah Luhansk iyo Donetsk oo bishii February marka dagaalka uu bilowdaba uu Vladimir Putin u aqoonsaday in ay yihiin jamhuuriyadda ka go'ay dalka Ukraine. sidaas oo kale Vladimir Putin wuxuu markaan qorsheenayaa oo dagaalka waji kale u yeelaya waxay tahay in laba gobol oo dhaca kuwa koonfurta dhaca uu doonayo in uu ka gooyo wadanka Ukraine goboladaas oo kale ah Kherson iyo Zaporizhia wuxuuna doonayaa Ukraine wuxuu doonayaa Vladimir Putin in labadaas gobol ee ku cusub inuu ka soo jaro wadanka Ukraine sidii uu kolka horeba ugu dhawaaqay in gobolka Donbas ee Luhansk iyo Donetsk uu ugu soo jaray. sidaan la soconana maanta ayuu TV-ga ka hadlay madaxweyne Vladimir Putin isagoo uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in dadka dega 4taasi gobol ay go'aan ku gaareen inay afti codeyna ay sameeyaan. haddaba Ukraine iyo xulafadeeda NATO waxay u arkaan arintaasi inay tahay mid daansi cusub oo wajigii dagaalka waji cusub u yeelaysa. haddaba Ruushka wuxuu doonayaa in uu codeyn ka qaado 4taas gobol dadka degan sida la ogyahana lama oga ilaa hadda marka laga reebo gobolka Donbas dadka degan waa Luhansk iyo Donetsk oo ah dad luqadda Ruushka ku hadla aadna u taageera Ruushka. laakiin labadan gobol oo hadda uu ku soo daray waa Kherson iyo Zaporizhia lama oga in dadkaas ay yihiin dad la soo qasbay ama la qasbayo in kale. wixii ku soo kordhay arintaasi waan dib ayaan u eegi doonaa. haddaba ciidamada Ukraine gacanta ma ku hayaan oo guud ahaan ma maamulaan 4tan gobol oo Ruushka uu doonayo inuu afti ka qaado. Ruushka wuxuu maamulaa qiyaastii 90,000 oo square oo kilomitir oo u dhiganta 34,750 square oo mile. marka la fiiriyo guud ahaan dalka Ukraine marka loo fiiriyana ciidamada Ruushka waxay hadda ay doonayaan inay afti ka qaadaan qiyaastii dhulweynaha Ukraine marka loo fiiriyo 15% dhul ayay haystaan isku celcelis ahaan. intay haystaan waxa lagu qiyaasaa inay tahay ama qiyaas ahaan loo fiiriyaa dalka Boortaqiiska ama dalka Jordan loo yaqaan ama Urdun loo yaqaan. sidan hore ula soconayna Ruushka wuxuu 2014 Ukraine uu ka qaatay oo si xoog ugu qaatay iyadoo caalamka dhan uu arkayo awoodna u adeegsaday jasiiradda Crimea sanadkii 2014 cid ka daba hadashayna ma jirto xitaa Mareykanka iyo oofaaradiisa. haddaba Ruushka markaan wuxuu u muuqdaa in wajigii dagaalka uu bedelay isagoo markaan u soo jeestay in awoodiisa uu tuso wadamada reer galbeedka. sidan hore ula soconay bishii February wuxuu laba gobol oo kala ah gobolada Donbas ee Luhansk iyo Donetsk uu ka gooyay ama uu ku dhawaaqay inuu ka jaray Ukraine inteeda kale 2014 waa tii uu qaatay Crimea. hadda wuxuu u soo jeestay gobolada koonfureed oo kala ah Kherson iyo Zaporizhia isagoo doonaya inuu ka jaro Ukraine inteeda kale. haddaba haddii Ruushka uu ku adkaysto inuu 4taas gobol uu ka jarayo Ukraine inteeda kale maxaa dhici kara? maanta baaritaan aan ku hayo arimahaasi ayaa waxaan ogaaday dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in dagaalka Ukraine uu waji kala yeelan karo. sida uu hore u sheegaba madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu sheegay haddii uu madaxweyne Vladimir Putin go'aankiisa uu noqdo in 4taas gobol uu ka jaro wadanka Ukraine in ay weerar toos ay ku qaadi doonaan Moscow iyagoo ula jeeda in wadanka Ruushka ay weerar toos ku qaadi doonaan. sidaan la soconana maanta madaxweyne Vladimir Putin wuxuu warbaahinta ka sheegay in uu diyaar u yahay isla markaana qadka cas uu taagan yahay inuu adeegsado hub wixii uu haystay oo ugu weyn yahay hubka nuclearka. wuxuuna sheegay inuu isdifaaci doono haddii wadamada NATO iyo xulafadooda ay soo weeraraan dalkiisa ama ay carqaladeeyaan aftida bilaaban doonta 23 bisha September dhamaan doontana 27 bisha September. haddaba maxaa dhici kara haddii Ruushka uu ku guuleysto in 4taas gobol uu ku walimaysto? sida la qiyaasayo waxa la sheegayaa Mareykanka iyo xulafadiisa waxaa dhici karta ayaa leeyahay in weerar toos ah ay ku qaadaan wadanka Ruushka.
وين أركي دونا وحي وراء كسو كردا إن شاء الله إيشو كوهاي إذا عدبوا لحبي وانيقو حسن اسمان حاجي